deeqdan oo ka koobnay raashin iyo biyo-dhaamin isla markaana ka timid wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Cumar Al-Cadaala ayaa la gaarsiiyay dad badan oo abaaruhu ay ku saameeyeen deegaano badan oo hoos yimaada degmada Hobyo ee gobolka Mudug. qoysaska deeqda la gaarsiiyay ayaa waxay ahaayeen kuwa ay saameysay abaarta ka jirta deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Mudug, kuwaas oo ka soo hayaamay deegaanadii ay ku noolaayeen kadib markii ay waayeen waxay nolosha ay ku qabtaan isla markaana deegaanada qaar ay ka jirto biyari aad u baahsan. taakuladan oo wasiirku wakiil uga ahaa xildhibaan Cabdirasaaq Cali Axmed oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka warbixiyay deegaanada ay deeqda ay gaarsiiyeen isagoo baaq u diray dowlad goboleedka Galmudug. wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo deeqdan aan ka soo qaaday ugu soo gargaaray dadka qaraabadiisa iyo muslimiinta, dadkaas oo qabiil aan lahayn, jufo lahayn, deegaano badan aan ka soo qaybanay shalay Ximbarwaaqo, Eelhuur, Hobyo, deegaanka Magajibe, Saqiiro iyo hadda aan taaganahay meeshaan la yiraahdo Quracweer oo Hobyo u jirta 20 kiiloomitir. marka alxamdulillah ilaahay ayaa mahadaas iska leh. waxaan leenahay marka ugu baaqayna horta waxaan leenahay wasiirka meesha laga soo qaaday Allah barakeeyo. sidaas darteed waxaan leenahay dadka walaalaha ilaahay wax u dhigo muxsiniinta oo qurba joogto islaamka iyo ganacsatada dalka joogta iyo hay'adaha maxalligaaba laga soo gaaro. qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqda ka timid wasiir Al-Cadaala ayaa ka mahadceliyay, waxayna sheegeen in baahi weyn ay u qabeen helidda caawinaad kaga timaada dadkooda. deeqdaas maanta nolol keenay oo ninkii Al-Cadaala soo dhiibay Cabdiraxmaan si wanaagsan baa uga mahad celinay. 3 sano abaarana haysay, 3 sano abaartana haysana wax nala hadla maana arag, kullu duca la maagay. maanta deeqana asaga nala maagay. ma hadda labaadna ilaahay mahaya Al-Cadaala oo la yiri raashinka u soo dhiibay aan adila u celinaynaa. waxa cabashadeena hadda hore la idinku gudbiyay dadkan 3 sano roob ma helin, dhul caws lama joogaan oo gaadiid waa ka xoog yareeyay, xooluhu waa jilceen, dadkii waa jilcay. wixii islaama oo ilaahay dartii wax ula baxaya dadka wala ehelka oo islaamka oo hadii ilaahay mahayo dhibaatada walaalku ay dhibayso inay naga soo gaaraan. Al-Cadaala maartay deeq u keenay ka mahad celinaynaa. annaguna waxaan leenahay khayr badan oo aan ka dambeeyo aan sugaynaa hadii ilaahay idmo mid ka badanna waa doonaynaa oo inuu nala ku caawiyo. raashinka uu noo soo dhiibay waa ku mahadsan yahay, waana uga mahad celinaynaa, waana u baahnayn Al-Cadaala waa u baahnayn, waana uga mahad celinaynaa. Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Cumar Yarow waa mahadsan yahay oo noo keenay xildhibaanku aad ayuu u mahadsan yahay, waa ka mahad celinaynaa. inta ama deeq bixiyaasha ama haddii alla kuurooy madaxda waxaan ka codsanaynaa sidaas oo kale inay wax noo soo tacaawinaan oo noo soo dhiibaan. waxaana soo gaaray deeq uu soo dhiibay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Al-Cadaala. waan uga mahad celinaynaa intii la doon ilaahay